agaasimaha xalinta khilaafaadka ee wasaaradda xiriirka iyo golayaasha Cabdirasaaq Ismaaciil Kaldhi ayaa maanta iska casilay xilkii uu ka hayay wasaaraddaasi isagoo sidoo kalena cadeeyay inuu iska casilay xubinnimadii xisbiga talada dalka ee Kulmiye. Cabdirasaaq Ismaaciil Kaldhi oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga wadani ayaana si rasmi ah u shaaciyay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Dhanka kalena waxa uu eedeymo u soo jeediyay xisbiga xaakamka Kulmiye waana kan isagoo amuurahaasi ka hadlaya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. anigoo Cabdirasaaq Ismaaciil Maxamed kana tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda xiriirka golayaasha ahaa agaasimihii xiriirka dadweynaha madaxtooyada markii wasaaradda la kala jabiyayna wasaaradda xiriirka golayaasha ahna imika agaasimaha xalinta khilaafaadka ee wasaaradda xiriirka golayaasha waxaan go'aansaday markii aan eegay ama aan darsay ama aan in badan ka fiirsaday duruufaha waddanka ku jiro iyo xaaladaha maanta taagan waxa damiirkaygu hayn waayay in aan ka sii mid ahaado xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta hoggaanka iyo talada haysa taasi oo uu maanta waddankii u gacan galay ama uu afduuban yahay koox ku tagrifalaysa awoodda madaxweynaha iyadoo waxyaabaha ugu waaweyn ee jira ay ka mid tahay iyadoo dadkii maatada ahaa ay bakhtiyayaan in musuq maasuq cadaalad darro ay ku caanbaxday taasoo ay boqolaal kun oo hore oo dadka reer Soomaaliland ka rajo dhigeen ana maanta waxaan ku biiray kumayaankii ka quustay ee ka rajo dhigay rajada xukuumaddani ay soo wado. waxa kaloo aad u muhiim ah maanta markuu qofku xukuumadda ka tirsan yahay systemaad ka tirsantay ka hadli kari maysid laakiin dibadda uga baxda fiican dabadeetana wixii aad ku dhaliilisay aad ka hadasho laakiin markaad ka tirsan tahay gudaha wax laga saxaa in badan aan isku dayayna waxaan ka sixi karaa ka saxo laakiin ay mid quus ah u muuqatay waxay la gudboonaatay inaan iska casilo xilkii aan ka hayay xukuumadda isla markaana aan ku biiro xisbiga weyn ee mucaaradka ah ee wadani. Cabdisamed Jaamac Axmed, Ariel TV, Hargeysa.